السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada macalin cusub iyo waan ismada Ikram maanta waxaan ka hadlaynaa cudur oo la dhaho eating disorder eating disorder waxa waaye cudurada oo of course oo maskaxdu ka mid yahay badanaa waxaa lagu arkaa ilmaha teenagerska markay yihiin like middle school ilaa high school ilaa adi labaataneyada qofka ee dhibaatadaasita ay qabtaa kadib waa way ka weynaadaan camal waaye some people ma ka weynaadaan unfortunately laakiin most people way ka koraan waxaas way ka baxaan waa aragteen telefishinka iyo social mediada especially gabdhaha stress badan iyo culays ay saareen markay dhahayaan gabar kasta inay maadal u ekaata waaye inaa dharkaaga halaas oo ahaada waa inaa caatanimadaada saas ay ahaata miisaankaaga halaana u ka badanin so unfortunately waxaa arkaysaa gabdho badan oo culays ka saareen sidii ay miisaanka iskaga reebi lahaayeen so si acceptable u noqdaan because unfortunately hilibka iyo cayilka especially markaa teenager tahay wuxuu noqda wax laysku caayo oo laysku foorjeeyo so social mediada way u sabab noqon kartaa waxyaabaha oo eating disorder keeno waxyaaba kale oo jiraan sida oo masalan qofka hadduu abuse soo maray haddii uu cadaadis badan oo dareensanayo weligiis inuu waxba controli karin then waxay noqotaa wax oo qofka inay baahi u qabto inay wax control garayso so controlkaas wuxuu noqon karaa cuntadeydaan control garayna ama zaa'idaan cunaa ama waa iska goona anaa xukuma taas qof kale ma xukunto so eating disorderka saddex qayb u kala baxaa waxaa jirta waxa anorexia la dhaho anorexia waxa waaye qofka markay cuntada iska gooso completely especially markii ay qofka push garaysa limitka cuntada zaa'id iskaga gooso waxa waaye hero waxay gali kartaa isbitaal inay gasho because marka haddii uu korkaaga vitaminska iyo waxa u baahneed uu ku jirin dan lugahaaga waa ku istaagi weynaysa badanaa dadkaas very noticeable waaye caatanimadooda xadkay ka baxsan tahay exercise badan ay suubiyaan cuntada wax yaar ay cunayaan so basically naftooda cuntada ka goonayaan si ay uga soo horjeestaan miisaanka qaybta labaad waxaa la dhahaa bulimia waxa waaye qofka inay cuntada zaa'id u cunto laakiin markay cunto kadib waxay dareemaysaa wax oo guilt ama dembi then waxay isku dayaysaa inay soo celiso cuntada ee cunto so way ismatajinaysaa exercise badan ay suubine laakiin wax oo hal mar ma aha qof waxa waaye waxay noqotay continuous cuntadii markay bilowda waa isku zaa'idee u cunay haddana way ismatajinay haddana way cunay haddana way ismatajinay and qofkaaseeto dhibaatooyin la kulmi kartaa because markasta wax afkaaga inaa farta gelisid aa ismatajisid ama waxay kaloo suubiyaan laxative badan ay cabaayaan si ay haddana cuntadii usoo bixiyaan taasna dhib kale leedahay and a lot of medical problems ee dadkaasi ay qabaan because of that and then midda saddexaad waxa waaye wax oo binge eating la dhaho and binge eating waxa waaye dadka markii ay cuntada isku daldalayaan iyagoo dhargeen oo neefsala ay weli sii wadaayaan and dadka binge eating qabaan way ka duwan yihiin dadka bulimiada qabaan because dadka bulimiada qabaan markay cunaan haddana waa ismatajinayaan waxay isku dayaan inay waxay cuneen soo celiyaan laakiin dadka oo binge eating qabaan ma soo celinayaan way keep garaynayaan and those are dadka aragtid oo obesity ah heer waxay gaari karaan sariirta bedbound inay noqdaan ay sariirta ka kici karin because they can't miisaanka iyo lugihii xitaa maba islaha so that's the binge eating so saddexda qayb waa anorexia bulimia iyo binge eating sidaan dhahnay causeskooda way kala duwan yihiin so there's badanaa anxiety u badan tahay iyo emotional issues qofka dareenyaal iyo unresolved issues hadduu qabo then a way of control waaye so dadka qofka eating disorder a way of control waaye but dadka waxaa jiraan yani isjarjaraan camal masalan ama isgubaan oo isxanuunjiyaan control le waaye so waxa dhan waxa waaye at the end of the day waxay kusoo noqonaysaa qofka a mental health issue ay qabtaa oo la treat garaynin and ilaa oo kaas laga treat gareeyo waxyaabahan isbedelayaan waa intaas oo eating disorderkii lasoo gaabiyey haddaa su-aalo qabtid ama comment make sure ina hoos kusoo qortid waa mahadsantihiin iyo waan isku fikraa